xalay toole tamarkii habeen markaan yaabay roobkii kala istaagi waayay ayaan anigu qaraar qaatay sanisi maahay waa tagay fanaanka caanka ah Cawaale Aadan Diheeye ayaa 13 bishan soo gaaray caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa kadib 14 sano oo ka maqnaa hooyada fanka ee magaalada Hargeysa. imaatinkiisa ayaa dhaliyay doodo kala duwan oo kala aragti ah inkastoo si ballaaran loogu qaabilay garoonka uu ka soo degayay fanaanku. doodaha qaar ayaa ku wajahnay fanaanku diidan yahay go'aanka biyo kama dhibcaanka ah ee jiritaanka qaranimada Soomaaliland. hayeeshee habeenkii xalayto ayuu fanaanku bandhig faneed ku qabtay magaalada Hargeysa. dadka ka soo qayb galay bandhig faneedkan ayaa la filayay inay noqonayaan dad tiro badan hayeeshee 3 meelood oo meel intii loo saadaalinayay fanaanku ma uusan helin. waxaana arrintaasi dadka aqoonta dheer u leh fanku ku sababeeyeen in fanaanku diidan yahay qadiyadda iyo jiritaanka Soomaaliland. taas ayaana keentay in shacbigu ay u baneeyaan halkii fanaanku ka filanayay. qiimaha fanaankani ku heesayay ayaa ka badnaa qiimaha fanaaninta Hargeysa ay ku qabtaan bandhig faneedyada. hayeeshee shacbiga Hargeysa ayaa taasi fanaanka ka diiday. waxaana arrinkaasi sababtay in markii dambe shacbiga ku nool Hargeysa ay bandhiga ku galaan si lacag la'aan ah iyadoona kaadharka lagu galiyay bandhigan lagu qaybinayay qaar ka mid ah hoteelada lagu caweeyay ee ku yaala magaalada Hargeysa. kaadharka ayaa waxa ku qornaa in bandhigu bilaamayo 9 fiidnimo. hayeeshee dad la'aan dhacday awgeed ayuu 2 saac dib ugu dhacay bandhigaasi isagoona howlku haawanayay. waxa ama kaaga dhalisay in xukuumadda Soomaaliland ay jabisay go'aamo hore ay u soo saartay oo ay ku xadidayso waqtiga caweyska habeenkii kaasi oo ahaa in 12 iyo 45 habeenimo. wixii ka dambeeyay guud ahaanba la xidhayo goobaha lagu caweeyo. hayeeshee bandhiga Cawaale ku qabanaya Hargeysa ayaa bilaamay 12 habeenimo kadib dad la'aan dhacday. waxa uu soo gabagaboobay 3 habeenimo markii xukuumaddu u gurmatay. inkastoo xukuumaddu u hilinaysay fanaankan haddana taasi ma aysan suurtagelin oo shacbiga ayaa ka baaqbay. aynu dib u milicsano 14 sano ka hor fanaanka Cawaale Aadan iyo bandhigu ku qabtay magaalada Hargeysa. taariikhda hodanka ka habaabi maaye rugtii ugu horeysay xornimada u heestay. taariikhda hodanka ka habaabi maaye rugtii ugu horeysay xornimada u heestay. haddaba dadka qaar ayaa isweydiinaya maxaa iska bedelay taageeradii shacbigu u hayay fanaankan. bal aynu fiirino bandhigii xalay uu ku qabtay Hargeysa. Cawaale Aadan ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa isagoona sheegay inuu bandhigan uu Hargeysa ku qabanayay cid aanu uga amar qaadan. markasta uu doonayo inuu Hargeysa yimaadana cidna aanu amar weydiisanaynin. shacbiga ayaa isweydiinaya Cawaale halku ka keenay awoodan. bal aynu eegno fanaanka oo hadlaya. ma jirto magaaladana waxaan ku dhigi jiray iyadoon cidba goohir weydiisan ayaan ku dhigi jiray. imikana waxaan ku dhigay iyadoon cidba goohir weydiisan waxaana u soo noqon doonaa iyadoon cidba goohir weydiisan. sanadihii ugu dambeeyay magaalada Hargeysa waxa ku soo qulqulayay fanaaniin tiro badan oo tiyahaana ku kala dheer shacbiga. waxaana ka mid ahayd fanaanada caanka ah ee Farxiya Fiska oo imaatinkeedii iyo joogitaankeediiba uu gilgilay masraxiyada laga heeso ee magaalada Hargeysa. waxaana shacbigu ka garsoori doonaa bandhigan Cawaale ee qabiyoobay iyo saadaasha bandhiga shacbigu sugaya ee fanaanka Caaqil Yare. waxaana socdaalka Cawaale Yare iyo bandhigiisuba noqdeen hal laga jaray hal. Sakariya Sudaysi, telefishinka Sahan, Hargeysa.